rabaa inaan isku taago ciidanka asluubta Soomaaliyeed howl weyn u taalo guubaabada halkan laga jeediyay oo loo jeediyo maxaabiistaan ku filan hawsha ay ka hayaan xabsiyada dalka oo dhan cidda ka mas'uulka ah manaad waxa waxay mas'uul ka tahay bulshada nisba weyn ayaa marta xabsiyada xabsigu waxa uu abuuraa saaxiibo sida jaamacadu u abuurto saaxiibo qof aad isku galaasayeen 4 sano wuxuu kugu yeelanayaa saameyn marka ka waran dad wada xiran 10 sano 7 sano 12 sano xabsi daa'im waxay abuurayaa xabsigu marka saaxiibnimo aad u dhow saaka warqabtaana quraanka kariimka waxa lagu sheegay 10 jeer xabsi lagu sheegay sijni lagu sheegay waxayna dareensiinaysaa muhiimadda sijnigu uu leeyahay hasa ahaatee oraadan islaalkan armad ka dhahdaa ambaad fariinahan u dhiibtaa waxa weeye sanadkiisa xabsiga dhexe oo laga dhisay haba yaraatee 2 qol oo u gaar ah caruurta ama da'yar inaan halkan isugu imaano arrintaas walaas weyn ugu haysaa sida ka warqabtaan xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda qodobka 19aad wuxuu qeexaa da'da dembiga ay galaan mas'uulka ka ah waxa uu leeyahay 14 jir wixii ka hoosa mas'uulka ma aha dembiga ay galaan hase ahaatee 14 jir waxa uu mas'uul ka yahay dembiga uu galo dastuurka jamhuuriyadda qodobka 29aad uu nasakhay arrintaas waxa uu ku simay da'da 18 jir laakiin mushkilada jirta waxa weeye waxa imaanayo da'yar haddana geystay dhibki oo da'yartu waxay geystaan inta uu geysto qofka weyn intuu geystaan marka 18 jirka inuu ku dhexirnaado dadka waaweyn oo laga yaabo dunuub kale inay galeen oo qaar ay dil geysteen waliba 18 jirkeena waa garanaysaa aan korinshaha fiican aan qaadan ee bartiisu aad u yar tahay oo laga yaabo inuu tacaddi kala kulmo arrintaas waxaan u maleynayaa arrin laga garaabo mana la dul qaadan karo waxaan codsanayaa hay'adaha u xil saaran xabsiga waa kooban waxa u horeysa wasaaradda cadaaladda maxkamadda rafcaanka taliska asluubta guddiga cadaaladda waa joogaan ee baarlamaanka contribution xitaa laga aruuriyo dadkaas iyo inta caawa joogta 2 qol waa ku filan tahay in loo sameeyo iyo meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan iyo sariiro wanaagsan iyo nolol wanaagsan in looga dhex sameeyo xabsiga dhulkaasna waa haysanaa inta hataana sameeyay daara waaweyn oo sameeyna wax weyn oo sameeynaayeen malaha caruurtayna waa ku dhiban yihiin xabsiyada 2 isbuuc ka hor 2 caruuran ka sii daayay xabsiga waxayna geysteen dembi muuqda loo jeedo laakiin ma gaarsiisnay da'dii mas'uulka ka naqalahaayeen dembiga mana ku ogi xabsiga dhexe meel gaar oo lagu hay karo lagu xiri karo arrintaas waxaan rabaa markay noosta laga xariiqo xafladeeda haddaan laga sheegin in la dhisay guryo u gaar ah caruurta xafladaas ma qabsana aan muhiimadaas aan hormariyay markaa culayska ay leedahay waxaan u soo laabanayaa inaan kugu hambalyeeyo sanad guurada qontonaad. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.